magaalada Caabudwaaq ayaa lagu qabtay dibadbax looga soo horjeedo gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Nuur Axmed Tarsan iyo gudoomiyaha maxkamadda sare Caydiid Ilka Xanaf qabanqaabayaasha banaanbaxaasi ayaa waxa ay sheegeen in labada gudoomiye ay haystaan misanaba ay ka dambeeyaan hanti dhuleed ay sheegeen in dadkaasi ay ka maqan tahay warbixin arrinkaasi ku saabsan Caabudwaaq waxa ka soo diray Yuusuf Cabdi Shire dibadbaxan ballaaran ee looga soo horjeeday gudoomiyaha gobolka Banaadir Maxamed Nuur Axmed Tarsan iyo gudoomiyaha maxkamadda Soomaaliya Caydiid Ilka Xanaf ayaa maanta ka dhacay fagaaraha Alxarameyn ee magaalada Caabudwaaq dibadbaxa waxa soo qaban qaabiyay dad shacab ah oo iyagu hantidooda la dhacay sida ay sheegeen waxayna eedeyn dusha uga tuureen labada gudoomiye ee maxkamadda iyo kan gobolka Banaadir dadkii meesha ka hadlay ayaa isugu jiray nabadoono waxgarad iyo haween iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka degmada ayagoona sheegay in loo baahan yahay in xilligan cadaalad ka sameeyso dalka xukuumadda Soomaaliya iyagoona baaq u diray madaxda ugu sarreeysa dawladda Soomaaliya waxa xaqiiq noqotay oo dhacday in nin marxuum aha oo looran jiray Carab Shiro Warsamo Guuleed nin caana aha nin soo halgamay aha muwaadin aha nin la yaqaanay aha gurigiisii oo Muqdisho ku yaalay in hadda gudoomiyaha gobolka Banaadir wuxuu ku haysto xubno ka mid ah dawladda federaalka ee Soomaaliya oo loo idmaday inay u shaqeeyaan si cadaalad ah si sharaf ah si sharci ah loo idmay inay si dadban oo xaq darro ah inay u isticmaalaan shakhsiyaadkaas waxaan ka sheegaynaa waa gudoomiyaha gobolka Banaadir ninka la yiraahdo Dalsan iyo ninka la yiraahdo gudoomiyaha maxkamadda guud ee xeer ilaalinta Soomaaliya oo ku magacaaban Ilka Xanaf anigu labadaba way isnaqaanaa waa soo wada shaqeynay waxaan aad uga xunnahay boqolkiiba boqol hanti dadweynuhu leeyahay oo uu leeyahay shacabka Soomaaliya oo uu leeyahay aqoon u leedahay in la dhaco la qaato si qalinka loogu gabado waxaan leenahay arrintaas waa arrin gas ah ilaa billatii hiya ahsan sidii wanaagsanayd mooyaane sida wanaagsan aqoonta waxeeda wax loo ogol yahay oo dhadhamo looga ogol yahay oo diinta islaamku ogoshahay waxaa jira dadka ayaga tadbiirtooda iyo maamulkooda iyo maslaxadooda haya laakiin dad kale inay dhacaan diinta islaamku waa diiday waxaan u soo barnaamijnay oo halkaas ugu nimid waa arkaysan quruxdaan taaganahay annagoo haween dhalinyaro odayaal uquusha nabadoonna culumaa ummad islaam oo tiro badana agoonta xaqeeda la dhacay guriga agoonta xaqeeda la dhacay u soo barnaamijnay ma aanu dhicinayo nin dhici kara dhacay ninka dhici kara ka joogo horta kor leena marka ku xiga waxaan leenahay xamar ama Muqdisho ummadda Soomaaliya dhan baa degan guriga kule ninkii duqa magaalada loo ka dhigay iyo kiina loo ka dhigay maxkamadda hadaad dhacaysan hadaan ka ceeb ka soo dulgashay waxaan leenahay ka noqda arrinta si kastaba ha ahaatee dhacan lagu eedeynayo inay geysteen gudoomiyayaasha gobolka Banaadir iyo kan maxkamadda ayaa murankiisaba dhawaan waxa uu ka taagnaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya Yuusuf Cabdi Shire telefishinka caalamiga ah ee Royal magaalada Caabudwaaq.